Saaka iyo falowga cusub waxaanu ka baxaynaa degmada Balad Xawo. Hadda waxaynu joognaa waa geerishka waxaanu ku darsanaynaa lugaha aadyo si uu safarkanaga inooga hor istaagin luga banjar iyo waxaas. Waxaan ka dhaqaaqnay waa degmada Balad Xawo. Waxaynu maraynaa laamiga xaafadda Xashaawo. Waxaynu u soconaa gubata meel yiraahdo oo beeraha ah. Waxaynu rabnaa in aynu kusoo qudaaraysano haddii Allah awoodda la ogolaado. Safarka wax igu weheliya male waa keligay cid ila socoto male. Hadda waxaanu maraynaa waa Tuula Amiin oo ah duleedka magaalada tuulada ugu sokayso ee magaalada laga soo galo ama looga baxo. Weli waxaanu dhex soconaa waa Tuula Amiin. Hadda wax ma qurux badno safarka in aad keliga baxdo. Waxaan baxay anigoo keligay ah. Rabbi tawakal baan ku baxa. Safarku wuxuu qurux badan yahay in lagula socdo wehel aad haysato qof kula sheekaysto ama wax un aad isdhaafsataan ama murti aad ka hesho ama qof weyn ama qof dhalinyaro wuxuu noqdaba wuxuu ku qurux badan yahay safarka in aad qof wadato laakiin ma qurux badno keliga. Kelinimadu ma fiicno. Marka saas ay tahay keligay baa baxay saaka. Safarkuna ima qurux badnayn maadaama aan keligay ahay kaamirada meelaha badanaa ma duubi karin. Marka waxaan hadda soo gaarnay waa meesha korontada laga siiyo degmada Balad Xawo. Waxaa la yiraahdaa Somali Power Light Company. Waa degmada Balad Xawo meesha ay korontada ka qaadato. Waa laba meelood. Meeshani waa meesha dhankan markii la soo aado dhankan iyo xaafadaha waa bari xagooda dhanka siiso. Hadda waxaanu maraynaa waa Iidaan. Waa qurac bilaash. Iidaan waa naga horeysa cafan maana gaarin. Waxaa la yiraahdaa waa qurac bilaash oo Iidaantu waxa uu ma jirto waa hal meel Iidaan baa la dhihi jiray ama baabuur jabane magacaasina qaadatay hadda. Waxaan marayaa bushkii oo jaday caale. Waa barwaaqadaas geelo dhalay jimcadaas Ilaahay. Waxaan ku jirnaa dalbarasho. Meeshani waxaa la yiraahdaa Sinai. Waa meel bakool ah oo u jirta degmada Doolow 18 ilaa iyo wax ka yar 20 kiiloomitir wax ka yar u jirto. Waxay leedahay hambiyood oo ay ka cabaan ilaa 100 qoys ku dhowaad oo u dhow ayada. Meeshani waxaa la yiraahdaa waa Sinai. Waxaa ka cabo ilaa 100 qoys 150 qoys ugu yaraan. Waxaynu soo gaarnay hadda firishkii oo ay ka cabi jireen ka cabaan reebadiyaha xilliga abaarta. Walow hadda aan saas looga cabin. Waxay leedahay carrada waro oo xilliga roobka ay galaan biyaha. Marka wata ahaanti biyaha u kaydiso oo biyaha laga cabo. Waxaynu soo gaarnay waa carro Turki Laambuley. Meeshaan waxaa laga jaraa laamiga. Dhulku waa barwaaqo nimco Ilaahay baa taal. Wax yar waan u digaynaa si aan faahfaahin u helno. Waxaan nimid waa carro Turki. Dhankani waa dhanka loo aado degmada Doolow Soomaaliya. Dhankani waa dhanka loo aado degmada Luuq. Marka annaga waxaan u goynay halkaas oo ah webiga xaggiisa waxaan u soconaa beeraha gubata ilaa barbaray ayaan rabnaa inaan tagno yaaleen. Waxaan ka nimid halkaas oo ah Bulaxaw. Masha Allah dhulka maalmihii la soo dhaafay iyo maanta farqi weyn baa u dhaxeeya Masha Allah. Ugu dambeyn waxaynu soo gaarnay waa beertii aanu ka soo doonnay qudaarta. Beertani waa beerta babayga. Waxaa ka baxo babay. Waxaynu dhex taagnaa beertii. Waxaa la inoo diyaarinayaa waa qudaartii babayga. Iyadoo dhulka ku daadsan iyadoo juwaanaha lagu gurahayo oo la cabaynayo. Ugu dambeyntii waynu raranay alxamdulillaah. Waynu dhammaystiranay rarkii. Hadda waxaanu nahay waa dhaqaaq inaynu u dhaqaaqno degmada Balad Xawo inaynu u safarno haddii Alla idmo. Waynu ka soo baxnay waa tuuladii gubata ee hadda beeraheeda hadda aan joognay.
tuuladii ayaan daraf ka marnay way noo suurtageli weyday in aan dhex marno sababtoo ah culayska aan wadna awgeed. waan ka raaligelinayaa. waxaynu soo gaarnay meel la yiraahdo Dooble oo u dhow Siinay, tuuladii hadaytan duubanay oo lahayd biyaha. waa dhul barwaaqaysan alxamdulillaah, xoolaha say u daaqayaan maasha Allah. waa dhul ilaahay nimcadiisa ilaahay ku manaystay oo uu ka soo gaaray abaarihii ba'naa ee dadka haystay. ugu dambeyn waxaynu soo gaarnay degmadii aynu ka safarnay ee Balad Xaawo. waxaynu imaanay waa kontaroolkii degmada. halkani waad aragtaan inay bajaajihii isdaba marayaan. alxamdulillaah, safarkeenii yaraa ee gaabnaa waa inoo soo dhammaaday alxamdulillaah. intaan haddaad nala soo gaartay fadlan page-ka subscribe-ta noo saar adigoo mahadsan. salaamaad.